Maraykanku waa dilaaya warshadaha Yurub. Sababtoo ah, Maraykanku waa cadow iyo tartame Yuruba xilligan kolaadda wax soo saarka oo ka badan. Yurub waxay diiday gaaska dabiiciga ah ee raqiiska ahaa, kaasoo si kalsooni leh looga soo saari jiray tuubooyinka laga soo qaado Ruushka. Saamiga Ruushka waxaa bedelay Maraykanka. Laakiin keenista gaaska dabiiciga ah ee la qalajiyey ee maraakiibta laga keeno Maraykanka ayaa ka qaali badan in laga soo qaato tuubo laga soo saaray Ruushka. Sidaas darteed, Maraykanku waxay heleen awood ay ku saameeyaan qiimaha tamarta ee Yurub. Kharashka tamarta ayaa si weyn muhiim ugu ah warshadaha. Warshadaha Yurub ayaa durba aad u dhibaatooday sababtoo ah joojinta xiriirka ay la lahaayeen Ruushka. Mustaqbalka, Maraykanku waxay sii wadi doonaan inay yareeyaan warshadaha Yurub iyagoo xakameynaya qiimaha tamarta. Maraykanku waa kuwa jacli badan. Waxa ka wanaagsan inay burburiyaan warshadaha tartamaya halkii ay burburi lahaayeen kuwa iyaga u gaara.